jarmalka iyo kaamka iyo khamriga ina dhahday CK may taas waa ka diiday waxaad leedahay lo'da anaga caanaan ka helnaa oo waxaan ka helnaa hilib marka lo ah ku tilmaamin taas waa ka diidaan waxaad tiraahdaa doofaar goomaha bartamaha iyo bariga Afrika dheer kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Sooranyara channel fadlan hadii aad ku cusub tahay subscribe saar kuna soo dhawaada muuqaal cusub bariyahan waxaa soo baxay nin aflagaadeeya dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba oo dunida ay ka joogaan halkaana kaga bogo reaction-kiisa sidaad u jeedaanba ninkan aad hore u soo aragteen waa nin weyn oo oday ah oo haddana hadalkiisa iyo muuqaalkiisa aan islahayn waxaan jeclaan lahay marka inaan maanta aan video cusub aan ka sameeyo maadaama anigu ay tacajab ila noqotay ninkan weyn iyo waxyaabaha uu ku hadlayo iyo sida uu dhaqmaayo marka ila daawada bal wax yar ilma xaraanka wicilnimada kama baabiinaysiin xaraanna kama baabiinaysiin ilma faraqnimada kama baabiinaysiin weligiina madhalayska soo haanay horta ninkan waad u jeedaan ahaantiisa iyo hadalkiisa horta isma lahan ugu yaraan ninkan caqligiisu tamaam ma ahan haddii ay dad lahaan lahaayeenna macna waxaan jeclaan lahaa inay dadkiisa ay qabsadaan hadallada uu ka dhawaajiyay waxaa ka mid ah ilma xaaraan iyo ilma wecel iyo weligiis madhaliis buu ahaanayaa ninkan ama madhalaysa ahaado ama yoosan ahaanina maadoo ilmaha kaa dhali lahay maadoo ku aroosi lahay waad arkaysi siike haddaad badbaadin karaysiin qabiilkiina qabiil baad u yaacaysiin haddaad badbaadin karaysiin waa sax qof walba qabiil uu leeyahay waa sax qof aan qabiil ka dhalin haba yaraatee ma jirto adigaas foosha xun hadda qabiil baad ka dhalatay mideeda kale CK iskama dhicin kartid waan hubaa waxba ha bootaynin CK iskama dhicin kartid oday baa tahay adaa yaaban taada u yaaban khamrigaaga dhalada inaad ku filnaato wax kaaga roon male doofaar goomaha bariga iyo bartamaha Afrika anigu waan ku digayaa waxaan ku oran lahay ummadda islaameed ammaan gali nin weyn oo adi aan xishoonin adig horta maana arag markaan adi hadalladaada aan ku tijaabiyay ku arkay waxay ila noqotay in aad tahay qof aad iyo aad u waalan ugu yaraan waalida ayaa kala ah laakiin adiga waali iyo wax isku darsatay iyo aqli yari dadka qaar oo waalana waxaa jira xoogaa yar waalida dhaqantaa waalida xumeyd xitaa ma waalida dhaqanta la mid adigu waxaa tahay noocan la garanaynin qofto baran baa CK ninkan maxaa dhihi lahayd bal saaxiibo jarmalka iyo kaamka iyo khamriga ina dhahday CK may taas waa ka diiday waxaad leedahay lo'da anaga caanaan ka helnaa oo waxaan ka helnaa hilib marka lo ah ku tilmaamin taas waa ka diidaan waxaad tiraahdaa doofaar goomaha bartamaha iyo bariga Afrika dheer doofaar goomaha bariga Afrika ka waxaan ku leeyahay wad ogtahay Itoobiya u joogo Kenya Soomaaliya Uganda Sudan doofaar gooma dheh marka doofaar goomaha bariga siday ii sheegeen ilal waraadiyo lagu kalsoon yahay ninkan asalkiisu wuxuu ahaa nin khamriista ah oo garaabista ah oo darbijiif ah deetana si lama filaan ah oo nasiib ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waa iska qaadirkaas wuxuu u fududeeyay inuu tahriibo deetana uu Yurub sidaas ku tago ninkan ayaa ilaa ay hadeertaan inta uu Yurub joogaba aan laga nabadgelin ninkan ayaan weli aan iska daynin cabista maandooriyaashaas kala gidisan iyadoo xitaa gurigiisu aysan marka aad madaxa saas u soo gelisa uu yahayba guri uu madaxa ku wareerayo arrinkan waxaa ila soo wadaagay dad dariska la ah asaga ayaa ila soo wadaagay waxayna ii sheegeen in uu yahay ninkan nin maskaxiyan u waalan oo kaartoomanka marka uu soo xareysto habeenkaas uu darbiyada xitaa garaaco darbiyada inuu garaaco xitaa oo maaragtay biyaha uu musqusha ku furo oo ninkan alaa xal sida ii soo sheegay ninkan ma fiyooba waxyaabaha kale waxaa ka mid ah dadka banaanka xitaa kama nabad galaan dadka kaleenta ee uu aflagaadeeyay waxaa ka mid ah sida ninkan iyo sidan Idris Lacabdi wiilkan shaarka caday Itoobiyaanka iyo CK horta isaga birtaan iska dirnay waxaa kale uu aflagaadeeyay ninkan waxaa la yiraahdaa ilka casaqays ilka casa afqalooc waa wiilka ugu reebaadiyay fanaaniinta wallahi rabbi sheeg okay ugu dambeyntii ninkan aflagaadooyinka ee waxa ka baxaya waxay cadeyn u tahay ninkan inuusan fiyoobeen sidaas daraadeedna dahabacaayo dadka ma xumo laakiin waa in ixtiraam la baraa ixtiraamka waa in la baraa anagu waxaynu nahay dad walaalihiis ah
marka saas daraaddeed waa inaan ixtiraamka u barnaa oo u sheegnaa inuu dadka ixtiraamo haddii uu dhalooyin khamri ah iyo balaayo intuu isku daldalo uu ummadda uusan nabadgelinayna waa inaan xabsi dalaq siinaa sababtoo ah dee annagu sharafteenna inaan anagu sharaf dhac isku ridno isuma quurno marka inuu asaga ama qolo kale ayna sharaf disho ma jeclin saas daraaddeed annaga sharafaan rabnaa maahane sharaf darro ma rabna ninkaana sharaf darro ayuu nala daba taagan yahay waa inaanu iska qabanaa marka ugu yaraan waa inaan xabsi ku ogaanaa marka dhammaan daawadayaashayda qaymaha ay qadarinta le aad iyo aad u mahadsan tihiin intaan ayaan kusoo gabagabaynaya fadlan haddii aad ka cusub tahay